بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. dadka Soomaaliyeed ee sharafta leh waa idin salaamay. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. waxaad ogsoon tihiin adduunyada maanta waxa ka socda ee yaab kale dhammaanteen aan la socono. cudurka corona ayaa dilaacay oo 5 bilood hadda dhamaystay. meeshu ku dhamaanayana wax ogmada rabitaan ilaahay buu ku yimid, rabitaan ilaahayna wuu ku tagay, laakiin dadaal bini aadamku wada oo badan ayaa jira. dadaalkaas sida loola dhaqmay waa wada ogsoon tihiin oo waad ka dheregsan tihiin walaalayaal. waxaa lagu heshiiyay dhowr qodob adduunka oo dhan oo la isku khilaafsanayn. dadku inay kala fogaadaan oo la wada fadhiisanin, dadku inaysan meel ku ururin oo meelihii lagu ururi jiray oo dhan la iska daayo, in guryaha la fadhiyo. haddii la baxaayo lagama maarmo in la baxo mararka qaarkood inta la soo gadan oo ruux baa jiran oo hawl baa jirtee in sanka iyo afkana wixii la heli karo lagu xidho. taas ayaa lagu heshiiyey. waxaa lagu heshiiyey oo kale dhammaan meelihii waaweynaa ee dadku isugu imaan jireen, sida iskuulaadka, sida jaamacaadka, sida dugsiyaasha quraanka meesha lagu baranayo, sida masaajidda oo kale, iyo qolo waliba meesha ilaahay ku caabudo sida kanaa'ista oo kale, dhammaanna in la joojiyo oo la wada xidho ayaa lagu heshiiyey. maanta waxaa weeye Istanbul baan joogaa, Turki baan joogaa. 9,000 oo masjid wax ku dhowaa ku yaala Turki. 9,000 maanta way xiran yihiin. aadaanka kaliya ayaa la soo reebay si dadku salaadaha waqtigeeda ay u ogaadaan. waxaa la xiray oo kale wax alla wixii meelihii waaweynaa ee wax laga gadan jiray. waxaa la reebay kaliya meelaha daawada iyo meelo yaryar oo kale ayaa la xiray. waxaa ka dhashay marka hawshaas in dadku dhammaan maanta aysan aadaynin, badankooda aysan aadaynin meelihii ay u shaqo tagi jireen, iyo jaamacaadkii iyo iskuulaadkii iyo dugsiyaashii quraanka. innagu haddaan nahay shacbiga Soomaalida, waad ogsoon tihiinoo dalkeenna waa dalkaas daawadiisa maanta ay tabarta daran tahay. isbitaaladeennu meeshii la rabay way ka hooseeyaan. waxyaalaha maanta adduunka xoogga badnaa uu la yahay innaguna ma haysano. waxaa marka la rabaa sideen ula dhaqmaynaa maanta hawshan iyada ah. hawshan waxaan ula dhaqmaynaa adduunku suu ula dhaqmay waa inaan ula dhaqanno. waxaa kow ah jaamacaadka iskuulaadka in la xidhay waa ogahay, wayna ku mahadsan yihiin dowladda iyo gobollada dadka taliya in la xidhay oo meeshii ugu badneed carruurteenna iyo dhallinyaradeenna isugu imaanaysay macallimiinteennu meeshaas ayay ahayd. waxaan rajaynayaana dugsiyaasha quraanka ah oon isleeyahay in ka mida weli way sii furan yihiin, in carruurta aan khatar la gelin oon meeshaa lagu dambaabin. in ilmaha jira loo keeno waa dembi weyn oo ciqaab lagu mudan karo, maadaama takhtarada adduunka oo dhan ay saa ku naseexeeyeen, culimadii ilaahay oo dhanna ee waaweynayda ay saa ku naseexeeyeen in iskuulaadka quraanka, madaaristeenna quraanka, dugsiyaasheenna, golayaalka quraanka lagu barto, in iyo masaajidana dhammaan in la xidho. waa waajib sharci oo adduunka dhan ka soo baxay. culimadeennii ugu waaweyneed oo maanta xarameynkii baa xidhan oo adduunkii dhan baa xidhan. meeshaa marka waxaa la rabaa inaynaan ku khaldamin oo adduunku sida u dhaqmaya aan u dhaqanna. adduunka qayb ka mid ayaa nahay. qaybta labaad ee la rabo aroosyaha iyo geerida dadka isugu imaan jireenna waxaa la rabaa inaan la isugu imaanin. oo adduunka meelaha hadda ugu badan ee dhibaatada keenay waxaasaa ka mid a. waad ogsoon tihiin dhammaantiin. waxaa shacbiga Soomaalida marka loo yimaado walaalayaal, waad ogsoon tihiin dadkeennu dad xoolo badan haysta badankoodu ma aha. maalin nololeedka ayay la rafanayaan sida loo badan yahay. waa inaan dhammaanteen iskaalmaysano oo siduu dhaqanku inoo ahaan jiray markuu dhibaata dhacdo waa inaan dagaal weyn meesha ka gallo oo wax alla wixii aan haysano ay dadka kale inala wadaagaan ayaa la rabaa. oo ruux waliba dadku u yaqaano uu fara uu yidhaahdo walaalaha way baahan yihiina kaalmee, oo qaraabadu iskaalmayso, oo jiiraanku iskaalmeeyo, oo dadka gaajada u dhiman ayse aynaan yeelin innagoo xoolo haysanna inay gaajo u dhintaan, oo dadka baac mushtariga ah ee xoolaha fiican leh
ومالنتي حولها لو بحسن لها ومانتا oo dadka dawladaha xafiisyadooda xukuma ee mas'uuliyiinta ah waxa la rabaa wax ka soo maanta dadkooda ku tari karaan inay ku taraan maxaa jira haddaan saan la samaynin guryaha lama fadhin karo oo waan ogsoonahay waxaan u baahanahay karo walaalayaal inaan aad u fahamno waqtigan oo kale markuu yimaado sida loola dhaqmaayo si dhib yar ma aha nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu roob yar yimid oo roobka dadku qaatiyo iskaga socon lahaayeen ayaa wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam ala sallu fi rihalikum guryaha ku tukada buu yiri calayhi salaatu wasalaam maxaad marka u maleynaysaa maanta 2 milyan oo ruux baa hadda u jeefta cudurka corona waxaa laga cabsanayaa inay 100 milyan gaaraan baa laga cabsanayaa marka guryihiina ku tukada masaajida ha aadina sababtu waxa weeye xaramaynkii iyo Malaysia iyo Turkiya iyo Indonesia dadka adduunyada ugu waaweynaa ayaa waxaas oo dhan waardiye ka qabtay ugu yaraan in kamida waxaan isleeyahay way fulisay inta aan fulina jirradu way ku soo badanaysaa masaajida ilaahay waxa loo sameeyay in ilaahay lagu caabudo saadaradeed Amr ibn Aas radiyallahu anhu markii jirradu shaam ka dilaacday waxa u horeeya oo talaabsay waxa ahayd dadku inaysan meel ku ururin masaajida inaan lagu tukanin dhammaan buu wada xidhay Amr ibn Aas oo ogtiina waa saxaabigii diinta dadka aad u fidiyay ayuu ahaa saadaradeed wuxuu yiri ruux urayusan ruux arkin oo halaysu jirsada buu yiri waran dheer inta isu jiro waa waranku 2 mitir iyo ziyaado waaye inta halaysu jirsada ayuu yiri diinta iyaga ayaa inaga fahamsan diinta waa inaan iyaga ka qaadano dawladuhu iyo gobolada dadka xukuma dawladda federaalka iyo dadka iyo culimadu waxa la rabaa go'aan midaysan inay meesha ka qaataan markaan u imaado ardada jaamacaadka iyo quraanka fursad haysataane maadaama hadda guriyihiin aad fadhidaan waxa la rabaa duruus in si fiican loo barto dadka baaxifiinta ama researcherska ee cilmi baarista mashquulka ku aan waqti fiican ayay haysaane waa inay taa aad iyo aad uga faa'iideystaan waxaan leeyahay dadka wada nool waa inay aad wax isu baraan ay kala faa'iideystaan markaan u imaado aniga hadda waxa weeye shaqadaydu waxay ahayd magaalada Muqdisho iyo Kampala iyo Istanbul bay u dhaxaysay run ahaan hawlo aan ka haysan jiray anoo Istanbul maraayo oo shir u imid ayay arrintan igu qabsatay nisib wanaag waxaan jaanis u helay qoyskayga in kamida oo muddo dheer aan jaanis u helin inaan maanta la noolahay sidaad u labisanahay waa u jeedaan waan soo shaqo tagaa subaxdii waa habeenkiina intii aan nasan jiray waan nastaa wixii qoraalaha sameyn karana waan sameeyaa saadaradeed wax dhiba oo gaar ah inaan waxaan rabaa la qaadin oo dadka macnawiyaadkoodu inuu kor yahay baa la rabaa macnawiyaadkooda waxyaalaha xoojin waxaa kamida inay shaqada waqtiga ay geli jireen inay galaan nabiga calayhi salaatu wasalaam waad ogtihiin oo wuxuu yiri markuu la hadlaayay ummadda sayr ummad u noqon salaada subax marka la tukado wuxuu yiri allahumma barik li ummati fi bukuriha buri wa salaada subax iyo niska hore inaad shaqo aadaal rabaa hadaa duurkiina sanaysanayso in shaqo la aado subaxdii waxa la rabaa oo hawsha bini aadamku soo u qabsado aan u qabsano ayaa la rabaa waxa la rabaa in ducada la badiyo oo dadka ilaahay habeenkii ay tukadaan oo maalintii tukadaan oo ilaahay baryaan oo bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismi shay'un fil ardi wala fis samaa'i was samii'ul alim sida lagu ducayso ducooyinka nabi way badan yihiin saadaradeed diinta iyo cilmigu iskaba hor imaanayaan atibadu waxay noogu naseexaynayaan ayeelo culimadeena waaweyn mafaatida waxay ku naseexayna ayeelo jirrada saan u yarayn lahayn waa sidaas sida ayeelo waxaan leeyahay rabbi ha ina dhowree intuu mawdku dhiman yahay waqtigeenu yuu dhumin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu